marka hore waxaan doonayaa inaan wariyaasha sharafta mudan ee aqbalay maaragtay kulankeena aan u mahad celiyo. waxaan maanta taalka weyn midna wax kale maaha, waxaan isiri malaha dalku waajib buu kugu leeyahay inaad ka dhiibatay aragtidaada xaalaha jira. marka iyadoo qoran baan akhrinayaa, kadibna wixii su'aalaha inay fasaxno. بسم الله الرحمن الرحيم. sida aad la socotaan muddo dheer ayaan ka maqnaa masraxa siyaasadda, inkastoo jireen arrimo badan oo mudnaa inaan ka hadlo. sidaa waxaan mooday dan waxaan doorbiday inaan ummaddayda ugu hawarbaxo xirfadayda wixii aan qaban karo. waxaase soo hiyikiciyey xalana aan la gami waayey markaan ku qancay heerka maanta dalku marayo oo ah mid xasaasi ah, isla markaana aan indhaha laga qarsan karin. sidoo kale waxaa dareenkayga taabtay muxaadaro uu jeediyey sheekh aadan siiro, taasoo dhawaaq dheer iyo mid hooseba, waano iyo tusaaleba uu kula hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo bulshada inteeda mudanba. mowduucuna ahaa dulmiga, cawaaqib xumidiisa iyo halka ay diinta islaamku ka taagan tahay. ugu horeyn, mulkiga iyo talada, hoggaanka iyo kursiga waxaa bixiya ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaana uu siiyaa hadba qofku doono. waxaan rabaa inaan xuso siduu doonaha ku yimaadee, anigu ma ahi mid madaxweyne muuse biixi madaxnimada u diidan, sababta oo ah waxaan ahay addoon ogol ilaahay iyo ku tasarufka deeqihiis. mana ihi qof xaasid ku ah hibe eebba bixiye, balse taa beddelkeeda waxaan si dhaba u jeclahay madaxweynuhu inuu xilka uu hayo in ilaahay ku asturo, ummaddana uu wanaag iyo cadaalad ku hoggaamiyo, kana tago taariikh wacan. waayo waad ogtihiin waa doon badweynta maraysa, naaquudihiina ninun baa noqon lahaa. dadkaas saaran xaastaa oo dhan waxay jeclaan lahaayeen safarkaasi inuu ku dhammaado guul. marka hadday xumaato way la wada xumaanayaan, hadday wanaagsanaadana way la wada wanaagsananayaan. waxaase ii muuqda oo aan diidanahay maamul xumida maanta dalka ka jirta iyo cirib xumideeda dambe. waxaan jeclahay inaan iftiimiyo shirkaygan jarayd ma aha mid ku wajahan weerarka kursiga madaxweynaha, ee wuxuu daaran yahay dardaarankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ahaa u hiili walaalkaa haddii laga gardaran yahay iyo haddii uu gardaran yahay. sawirka guud ee maanta dalku marayo ma aha mid qurxoon, wuxuuna dib ii xasuusiyey mirihii ka dhashay talaxumidii 60kii. isna weydiiyey sida bilaa gorgortanka ah ee ay labadii dhinacee midoobay dhankii kale ku qaateen dhammaan mansabyadii iyo manficii dowladnimada. baadigoobkii jawaabtaas waxay noqotay inaan lala tegin talo iyo qulub midays. ifafaalaha ii muuqda wuxuu i tusayaa talo xumo iyo kala qaybsanaan ka qota dheertii hore, lagana yaabo in maxsuulkeedu ka cirib xumaado tii 60kii haddaan labdaba qaban oo aan eebbe caymin. abwaangaariye allah u naxariistee wuxuu yidhi, berigii isticmaarka taladii la ilduufay, burburkaad aragteeniyo hadday keentay inkaarta, allana ay tusi waaye. anna maanta gefkaygu inuu aasayo miino ubadkayga u taal. nasiib darro in muddo ahba waxaa ka hana qaaday geyigayga
siyaasad kooxaysan oo ku qotonta kala qaybinta iyo kala irdhaynta ummadda walaalaha. kooxdani waxay ku adeeganayaan isbahaysiga siyaasadeed ee jeegaamaysan oo ah shaar ay keligood ku macaashaan. waxaan ku nuxnuxsanayaa inaan marnaba beelaha ay ka soo jeedaan loo aanayn karin ereygaas iyo siyaasadda guracan ay halabuurkooda leeyihiin. badanaa inta hal door milgo iyo maamuus leh oo ka soo jeeda beelahaas oo karaamo iyo waxqabad ummadda u soo kordhin lahaa xayndaabka siyaasaddana looga tuuray maadaama aanay la aragti ahayn. waxaynu wada ogsoonnah in nuxurkii halgankii adkaa iyo curashadii somalilan ujeeddadeedu ahayd inay dalkeenna ka suusho cadaalad darradii iyo dulmigii midabada badnaa eeyna soo maray, mid shakhsi iyo mid deegaanba, lana dhiso bulshaweynta somalilan bari iyo galbeed oo nabdoon, midaysan, meelna u wada jeeda, dhib iyo dheefna u siman. waxay cabashooyin sii kordhaya ka soo butaacayaan gobollada awdal iyo salal, iyagoo ah hoygii midnimada somalilan, loomana muujin waxgarowshiya. himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee u waday profesor axmed ismaaciil samatar ee xambaarsanaa xal nabadeed iyo somalilan la wada leeyahay waxay ku dambaysay inay tisqaadi weyday lana siin waayey mudnaanteeda. sidoo kale waxaa jiraala-aan u deldelan gobollada sool iyo sanaag bari, waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarinay ka jirin, waxaana ka aloosan dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo xasiloonida. haldoorkii u yimid ee uu cali khaliif hogaaminayana waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen bahdilaad iyo niyadjab. waxaa soo durkaya xuduudkii dalka ee sanaag bari. iska daagarowshiiyo iyo baadigoobka xal qancin kara bulshada ee waxaan ka arkaynaa warbaahinta iyadoo ciidamadii qaranka ee tabashada qabay loola dhaqmay qaab ka baxsan milgaha maamul iyo ka ciidanba, laguna sheegay calooshooda u shaqaystayaal iyo basaasiin inagu dhex jiray, inta hadhana loogu baaqay inay ka daba tagaan, taasoo micnaheedu yahay in la inkiro xuquuqdoodii muwaadinimu. iyadoo raggaas ay ka mid ahaayeen qaar badan oo tiraba dhowr jeer u dhaawacmay difaaca qaranka somalilan, duruufo adagna ugu dhabaradaga. waa halkii gaariye dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdal ee aadanow hagrateen raacdadeedu adkaato lagu raadsho ilays. waxaa muddo dheer aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogeynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku laatay sidii dalkan iyo dadkuba u xoroobi lahaa. inkastoo ay muujiyeen inay ogol yihiin qarannimada somalilan iyo la shaqaynta hadba hoggaanka jooga, waxaa loo sawiray inay yihiin cadow. maantana waxay ka aradan yihiin manfac iyo masabba waxay xaq iyo xuquuqba u lahaayeen. waxaa kala shaki iyo isubahalogelin la kala dhex dhigay iyaga iyo walaalahood, taasoo wiiqday muuqaalkii wada jirka ee qarankeena. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummaddiisa kula dardaarmay inay karaameeyaan kuwa beelahooda iyo bulshada dhexdooda karaamada ku leh. waxaa ah wax la liqi kari waayey in madaxweynuhu qiimeyn waayey odayaashii beelweyntii siday nabadayntii arrinta caare. fadhigana waxaa ugub ku ahaa
isla markaana bahdilaad u noqday in madaxweynuhu odayaasha nabaddii la qaadan waayey isla markaana cajalad ka duubay soona baahiyey. waxaa isa soo taraya nasiib darrada ku habsatay nidaamkii doorashada Soomaaliland oo u muuqda mid fadhida, waxaana muddo dhaaf ah doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii golayaasha deegaanka, iyadoo nasiib wanaag dalkeenna aanay ka dhicin aafooyin sababi kara dib u dhaca intaa leeg. arrintaasi waxay dhabarjab ku tahay inuu dalkani iyo dadkuba helaan xuquuqdoodii ahayd kala xulashada kaadirkii ku habboonaa hoggaanta mustaqbalkooda. intaasoo rajo xumi ah waxaa ka sii daran shaqo la'aanta baahsan, dhaqaale xumida saamaysay bulshada inteeda badan, cadaalad darrada iyo musuq maasuqa xarigga goostay, xarigga iyo cagajuglaynta loo geysanayo cid kasta oo fakarkeeda saliimka ah cabirta, iyo awooddii dawliga oo si aan hamrasho lahayn loogu xalaalaysanayo hantidii qaranka iyo tii danyarta, baroorta hooyaduna ka dul yeelaysa dhagahaan. qadiyadda Soomaaliland ma aha qadiyadda Soomaaliland oo ah midaan u soo halgamay, aaminsanahayna inay danteedu ku jirto, ku mira dhali mayso in naxli la kala dhex dhigo bulshada reer Soomaaliland iyo shacabka kale ee Soomaaliyeed. mana aha inay noqoto mid hergelinteeda lagu baadi goobo ciil, caro iyo xiqdi. dhibaatadii loo geystay reer Soomaaliland looma aanayn karo dad shacab ah, balse waxaa geystay oo ay tahay in lagula xisaabtamo taliskii Maxamed Siyaad Barre. sida aan maantay dhibka xukuumadda Muuse Bixi geystaa aan beel iyo cid kale toona loo aanayn karin. inkastoo jiraan intaasoo mugdiya oo isa saaran, waxaan u arkaa in shirka dhowaan laga cilaamiyo Burco noqon karo mid badbaado qaran. shirkaas waa mid dhaqan oo turxaan bixin kara, dibna u yegleeli kara inay kalsoonidii walaaltinimo soo noqoto. waxaan ku talinayaa in shirkaas inaan shirkaas lagu soo koobin oo aanu ku soo idlaan labada beelood oo keliya, ee goboshu noqoto mid furan oo turxaan bixisa, kulmisana beesha dhexe ee la kala irdheeyey iyo beelaha kale ee Soomaaliland dhammaantood. gabagabadii waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kula talinaya: kow, madaxweyne, waxaan kugula talinayaa inaad meesha ka saarto siyaasadda kooxaysan oo loo aanaynayo kala irdhaynta bulshada, ummaddana aad dhex noqoto. labo, inaad garooshiyo iyo xaal ka bixisid deelqaafkii ummadda ku dhaqan Sanaag Bari ka soo gaaray jaranka ciidanka qaranka. inaad mudnaan gaara siiso tabashada gobollada Awdal, Salal, Sool iyo Sanaag Bari, kuwaasoo la'aantood aanay jiri karin Soomaaliland. inaad hoos u eegto cabashooyinka beelaha iyo raadadka ay rabtay doorashadu. inaad ka waantoydid xarigga wariyaasha iyo cid walba oo fakarkeeda saliimka ah cabirta, xorriyaddiina u soo celisid muwaadiniinta u xiran aragtidooda. 8, inaad si dhaqso ah isugu yeedho waxgaradka iyo waayo aragga ummadda, kalena tashato xaaladda adag ee dalku maanta maraya iyo sidii looga bixi lahaa. sidoo kale waxaan waxgaradka ummadda ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay yaqiinsadaan in waxa laysku hayo ay ka weyn tahay waxa aan isku nahay. waxa laysku hayo inay ka weyn tahay waxa laysku yahay. beerkoodana burcad isku mariyaan,
haddii hoggaanku wanaagsanaadana horumarkooda iyo wadajirkooda ku dhaqaaqana ay taageeraan wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu